shir degdeg ah oo looga arinsanaya xaaladda amni ee magaalada Garbaharey ee xarunta gobolka Gado ayaa ka qabsoomay taliska guutada tobnaad ee gobolka Gado ee magaalada Garbaharey. Shirkan ayaa waxaa ka soo qayb galay guud ahaan saraakiisha ururka kontonaad guutada tobnaad qaybta 43aad ee fadhigoodu yahay magaalada Garbaharey. Shirkan ayaa waxaa gudoominayay abaanduulaha guutada tobnaad gaashaanla dhexe Ismaan Sheekh Cabdi Qorax, isla markaana ay qayb ka ahaayeen saraakiisha guutada kontonaad. gaashaanla dhexe Ismaan Sheekh Cabdi Qorax, abaanduulaha guutada tobnaad, ayaa warbaahinta codka ciidamada qalabka sida uga warbixiyay xaaladda guud ee amniga magaalada Garbaharey iyo guud ahaan gobolka Gado. Salaam dhammaan ummadda Soomaaliyeed. Gaar ahaan salaamaya telefishinka codka ciidamada qalabka sida. Waxaa jirtay in maalmahan nimanka cadawga ahaa ay isku daahiyeen in deegaamadan aan joogno ay xogaa rabsho ka sameeyaan. Hab oo tuugnimo ah ay isku dayeen. Waxay sameeyeen xabado ay ka soo rideen meelo oo kiiloomitir 1 kiiloomitir wax ka badan meelaha ay goobta ciidamada degan yihiin camal ay si dhuumaaleysay u imaadeen. Xaqiiqahan waa laga warqabay waan la fashiliyay oo meelaha goobaha lagu fashiliyay. Waxyaalo loo geystay baa jirta. Inta badan waxay isku dayaan inay ka faa'iideystaan ciidamada qaranka Soomaaliyeed. Dadka shacabkana ay dhibaateeyaan. Laakiin ilaahay uma suurtagelin taas maadaama dad dhagar qabayaal ay yihiin. Ujeedadoodu ay tahay inay dadku dhibaateeyaan shacabka ah iyo inay la dagaalamaan jiritaanka ummadda Soomaaliyeed oo dhan. Waxaan ku guuleysanay ilaahay noo guuleeyay inaan goob kasta ay ku sugan yihiin oo iyo waxyaabo isku dayayaanba in koortaal lagu sameeyo. Alxamdulillah waa intaas wixii ka jiray maalmahan deegaankan aan joogno Garbaharey area Garbaharey. Saasoo kale guud ahaan gobolka waxaa ka jira dhaqaaqyo badan baan ka sameynaa oo guutada ay sameynaysaa hadii Ilaahay yiraahdo. Maalmihi aan soo dhaafnay howlgallo badan baa jiray oo aan sameynay oo aan ku bartilmaameedsanay goobo ay dadka ku dhibayeen shacabka ah. Sidaasoo kale waxaa jirtay meel ay isbaaro dhiganayeen meel badan oo isku dayahayeen inay maartay dadka shacabka isku tusaan. Waxaan soo dhan baan beegsanaynay waxaan ku guuleysanay inaan ka ceyrino meel badan oo ay joognaan ku sugnaayeen. Meel badan ay noo suurto gashay inaan ku waxyeeleyno oo ayaga khasaare aan ku gaarsiino. Annaga waxaan ku guuleysanay oo Ilaahay aan ugu xamdinaynaa in wax dhibaato naga soo gaartay aysan jirin howlgallada aan ku jirnay. Sidaasoo kale dadka shacabkana ay ka bad qabaan oo wax dhibaato u geysteen aysan jirin. Marka laga reebo in ay niman iska burcad ay yihiin oo ay isku dayahayaan marka halkan hadda ka ceyrisa oo kale ama halkan aad ku waxyeeleyso haddana meel kale inay u bedeshaan oo meel kale ku dhibaateeyaan haddana dadka shacabka ahaa. Waxaan rajaynaynaa in noo suurtagali doonto guud ahaan gobolka iyo Soomaaliya oo dhan inaan ka sifeyn doono ka xoreyn doono. aad baan salaam wa mahadsantiin. Assalaamu calaykum warahmatullaahi ta'ala wabarakaatuh. Cabdullaahi Macruuf, warbaahinta codka ciidamada qalabka sida magaalada Garbaharey ee xarunta gobolka Gado.